daawadayaal ku soo dhawaada channelkeena Arab 24 mowduuca maanta aan uga hadli doona waxa uu yahay qaladaadkii nuclearka ee lagu burburin gaaray adduunka laga soo bilaabo xayawaano iska dhex galay meel xasaasi ah ilaa cilado kombiyuutar ka yimid waxaan eegi doonaa dhacdooyin sabab u noqon rabay isticmaalka hubka sida ba'an wax u gumaada iyo sida ay u sahlan tahay in ay dhacaan qaladaadka horseedi kara in uu qarxo dagaal la isku adeegsado nuclear dad badan waxay isku dhac noocaas ah ku tilmaamaan inuu noqon doono dagaalkii saddexaad ee adduunka xilli saqdhaxa ah oo taariikhdu ay ku beegneed 25 Oktoobar 1962 ayay diyaarad ku degaysay garoonka gobolka Wisconsin waxaana wadada diyaaradaha ku cararaan ku socday gaadhi isku dayay inuu ku hago qaabkii ay u caga dhigan lahayd laakiin daqiiqado yar ka hor xilligaas nin waardiye ka ah xarunta kormeerka iyo hagista ee Duluth ayaa isha ku dhuftay hooska wax uu dabcan u maleeyay ruux oo isku dayaya inuu derbiga uga soo dhaco xaruntaas rasaas ayuu riday wixii uu hooskiisa arkayay isagoo ka cabsanaya inuu ahaa weerar Mareykanka looga soo qaaday dhinaca midowga Soviet isla markiiba waxaa la sii daayay astaamaha kheyladhaanta ee muujiya marka dal la soo farageliyo waxaa seeriga kheyladhaantaas laga yeedhiyay dhammaan saldhigyadii ciidamada cirka ee ku yaalay aagaas xaaladdu waxay u sii xumaatay si degdeg ah oo taariikhda gashay taas waxaaba ka sii darneed markii saldhig ay ciidamada cirka lahaayeen oo halkaas u dhowaa ayuu qof ka sameeyey qalad kale halkii uu daari lahaa kheyladhaanta digniinta ee caadiga ah ayuu daaray mid ka duwan taas dhammaan duuliyayaashii ayaa maqlay digniin degdeg ah oo u sheegaysa inay durba diyaaradaha kiciyaan waxyar kadib hawadii oo idil way isqabsatay dhammaan diyaaradihii oo uu saaran yahay hubka nuclearka ayaa cirka wada galay sanadii 1958 diyaarada ayaa si kama ah bombo nuclear ah ugu riday guri ay qoys deganaayeen qaybtiisa dambe waxaa mucjiso noqotay in qofna uusan ku dhimanin shilkaasi inkastoo digniin ay qoyskaasi lahaayeen uu halkaasi ku leedahay waxyaabaha noocan ah waxa ay dhacaan xilli aad u dhow oo ahayd 2010 markaasoo ciidamada cirka ee Mareykanka ay xakameyn waayeen 50 gantaal oo ay ku rakaban yihiin madaxyada nuclearka taas oo ka dhigan in muddadaasi gudaheeda aan waxba laga qaban karin haddii ay gantaaladaasi faraha ka baxaan 25 bishii January ee sanadii 1995 madaxweynihii Ruushka ee xilligaasi Yeltsin ayaa noqday hogaamiyihii ugu horeeyay ee taariikhda adduunka ku gala in boorso yar oo gacanta lagu qaadan karo lagu xiray qalab laga hagi karo habka nuclearka taasi oo marka uu damcay uu ka adeegsan karo weerar bombooyinka nuclearka ah kooxdii dhinacaasi nadarka u qaabilsaneed Yeltsin ayaa ogaaday in gantaalka laga riday xeebta Norway waxayna arkeen gantaalkaasi oo hawada sii galaya xagee loo waday gantaalkaasi ma yahay mid cadaawad wata maadaama Yeltsin uu gacanta ku hayay boorsadii nuclearka wuxuu la taliyaashiisa kala arinsaday inuu istaago ama uu jawaab weerar rogaal celin ah iyadoo daqiiqad uun ay ka harsan yihiin in uu go'aan gaaro ayay garteen in gantaalku uu ku wajahan yahay badda wax halisna uusan ka ahayn goor dambe waxaa la ogaaday in gantaalkii la riday uusan ahayn nuclear balse uu ahaa hab saynis ah oo baaritaano lagu sameeyay waxa micno ah kuma fadhino in hubka nuclearka ah loo isticmaalo sabab ku timid qalad ama dagaal run ah laakiin marka haddii uu si run ah loo rido ama la soo celin karo haddii madaxweynuhu uu ka falceliyo qayladhaan ama waxba ka jirin kadib wuxuu si kam ah u bilaabayaa dagaal la isku adeegsado nuclear ayuu yiri Willie Burton kaasi oo ka shaqeynaya wasaaradda difaaca ee Mareykanka xilli uu madaxweyne ka ahaa Bill Clinton ma jiro wax la qaban karo markii la fasaxo nuclear gantaalada dib loo soo celin karo ama laamaha uu burburin karo inta dhexdiisa ku sii jiraan ayuu yiri xilligaas waxaa taagnaa xasaradihii gantaalada Kuuba oo ah wadan cadaawad weyn kala dhaxaysay Mareykanka qof walbana dhagta ayuu kor u taagayay 11 maalmood ka hor waqtigaas diyaarad basaas ayaa sawir ka soo qaaday gantaalo ay Kuuba u tijaabinaysay si qarsoodi ah iyo taangiyo kuwa dagaalka ah waxaana soo baxay warar sheegayay in Soviyetka ay abaabulayeen weerar ay ku qaadaan meelo ka mid ah Mareykanka dhammaan dunidu waxay ogeed in hal duqeyn oo uu sameeyo mid ka mid ah wadamada Mareykanka ama Ruushka oo isu bedeli lahaa xaalad aan la saadaalin karin laakiin markaas wixii dhacayay ma ahayn wax gabi ahaan barun ah
ugu yaraan ma ahayn wax uu bani aadan sababay, wixii hooskiisa laga arkayay derbiga wuxuu ahaa xayawaanka loo yaqaano oorsada oo madow. sidaas darteed qalad dhacay dartiis ayaa loo adeegsan rabay nukleer. diyaaradihii la kiciyey ayaa loo sheegay in ay saldhigyadooda ku laabtaan duuliyayaasha markii ugu horreysay ee ay tallaabada qaadayeen waxay si xaqiiqo ah u hubeen in uu bilowday dagaalkii saddexaad ee adduunka. haddii aan maanta eegno caalamka, waxaa la iloobay xiisadihii hubka halista ah ee taagnaa 1960meeyadii, taas oo beddelkeeda waxaa la hadal hayaa isbeddelka cimilada. waxaa xitaa si sahlan lagu ilowsan yahay in adduunka ay yaalaan qiyaastii 14,000 oo bambooyin nukleerka ah. haddii bambooyinkaas loo adeegsado waxay dili karaan qiyaastii 3 bilyan oo ruux. arrinta keliya ee aan la isweydiinin waa in waxaasi ay ku dhici karaan si khaldan oo isfaham darro ah. tan iyo markii la soo saaray hubkan waxaa la xaqiijiyey ilaa 22 jeer oo khaladaad noocaas ah ay dhaceen, qarkana loo istaagay in loo adeegsado hubka wax gumaada ee nukleerka.